بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاضل السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة فاضر سورة لغو مقعابي مكية مكي كسو دكتي وآياتها إذهادنا 45 آية أفرتن إيا 5 آيادود ويه أما أفرتن إيا 6 ويه. وعاكلو ليلة سورة دان وحاوية 970 كلمة 3,430 حرف ويا ليلة سورة دان أينو ميشان كقلينو وحا ليلة سورة فاضر أيال لها وحاوية وسورة دي 35 أو قرآن كميدة. suuradan marka waxa weeye suuratu faadir waxa loogu magacaabo tasmiyadaas wax badan aan soo maqnay. waxa kale oo xataa lagu magacaabo suuratul malaa'ika waa la yiraahdaa. waxay kamid tahay qaacidadeeda min baabi tasmiyati kulli biismi ba'dihi ala aadati Allah ta'ala fi kitaabihi. shay kulliya ba'd kamid oo lagu magacaabo aadada Ilaahay kitaabkiisa sida ku dureersatay sidaas weeye. suurada marka waa suurad makiya mar haday suuradu makki taana waxaanu soo marnay inay ka hadlayso usulul aqeeda ay ka hadlayso oo ay ka hadlayso arnubuwa wa risaala bacsiga iyo qiyaamadii iyo ahwaalaheedii iyo markaas aayado Ilaahay subhanahu wa ta'ala qudradiisa wahdaaniisa tusaaleynaya ayay maarata ka hadlaysaa suuradaanu. waxaana weeye suuradii waxay kamid tahay oo 5 tahay oo xamdiga ku bilaabanaya. xamdigaasna waxa weeye hadda waxaanu ku soo marnay suurada hadda inuu ka soo bixinay oo suuratu saba ayaanu ku soo marnay. marka waxa weeye xamdigaas wuxuu yahay xamdiga markii hore suuratul faatiha soo bilaabaynane hadda qaybihiisa iyo markaasi waxa ku tacalluqayo badan waanu soo marnay. bismillaahir rahmaanir rahiim. alhamdu mahad saabitun ki sugnaada weeye xamdigi lillaahi alla ayuu sugnaaday. marka xamdigan ilaahay naftiisa ayuu ku xamdiyay sida waxa weeye maartay suuratu saba awalkeeda aanu ku soo bilownay. ilaahay naftiisa ku xamdiya ta'dhiima li nafsihi asagoo naftiisa weyneynaya haddana khalqigiisa tacliiminaya sida markaasi ilaahay loo amaanayo kayfiyadaas inay bartaan khalqigu. marka Allah wuxuu dhahay alhamdulillah alhamdu mahad saabitun ki sugnaada weeye xamdigi lillaahi alla ayuu sugnaaday. allihi faadiris samaawaati samaawaadka abuuray wal arli arladana abuuray. waa dad suuratu faadir ayaa leeyiri. allihi faadiris samaawaati samaawaadka abuuray ayuu dhahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala wal arli arladana abuuray. oo allaha xamdigan iska leh waxa weeye waa midka samaawaadka iyo arlada abuuray kaas weeye oo markaas meel cadama oo ebera ka ehaysiiyay. fadrigu markaas sidaas waaye. allihi faadiris samaawaati samaawaadka abuurow dha Ilaahay wal arli arladana abuuray oo meel cidla ka bilaabay ala ghayri misaalin sabaq ayadoo wax oo nabi Ilaahay oo ka suuraynayo oo markaasi oo ka qaadanayo oo ka horeeyay aysan jirin. allihi jaa'ilil malaa'ikati lafdul jalaalaha saa ka sifayaysa jaa'ilil malaa'ikati malaa'ikta ka yeelay rusulan rusulka ka yeelay kuwa anbiyada loo diro uli ajnihatin aw Ilaahay malaa'iktaasoo uli ajnihatin garba u saaxiibahu Ilaahay مثنى لبو iyo wasulaasa 3 iyo warubaaca 4 Ilaahay.
yaziidu alla waa ziyaadinayaa fil khalqi khalqiga abuurka malaa'igta maa yashaa'u waxa uu doono oo hadda intaas la sheego ajnixa ah ka ziyaado ayaa ilaahay ka dhigayaa in allaha alana calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa qadiirun alihi kara weeye marka hadda allaha xamdigu u sugnaaday ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala oo asagu naftiisa uu ku xamdiyey ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala noo sifaynayaa si waxa weeye alla subxaanahu wa tacaala sifaadkiisa markaasi wax noloo kaga baro markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala alxamdu lilaah ilaahay ayaa mahad iska leh allihii faadiri samaawaati samaawaadka abuuray wal arli arladana abuuray waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala xamdiga uu ku mutaystay ayaa naloo sheegayaa ilaa wax haddii la ammaano waxaa laabud ah in la helo wixii lagu ammaanay in la helaa la rabaa haddii wax la iska ammaano wax ammaanahoy leeyihiin aysan jirinne waxa weeye waxaan markaasi fiicnayn oon caqligu xataa aqbalayn ayay noqonayaan weye allihii haddana ayuu dha ilaahay jaacilil malaa'ikati malaa'igta ka yeelay waxa weeye markaasi sifo labaad oo lafduljalaalaha laga sifaynaayo jaacilil malaa'ikati malaa'igta ka yeelow dha ilaahay rusulan ka dhigow dha ilaahay rusul kuwa la diro oo ilal ambiyaa'i weeye ambiyada ayay waxyiga u keenayaan allihii jaacilil malaa'ikati malaa'igta ka yeelow dha ilaahay rusulan rusul ka yeelay rusul oo waxa weeye lala diro waxyiga oo ambiyada loola diro marka hadda waxaa laga wadaa ha layidhi bacdul malaa'ika laga wadaa ee malaa'igtoo dhan hadda waxaa weeye rusul oo loo soo diro ambiyada ma ahano waxyi uma wada keenaan marka sidaas ayaa markaasaa la leeyahay rusulan weeye markaasi ka yeelay ilal ambiyaa'i weye markaas sidaasaa la dhahayaa laakiin culummadu hadda waxay yidhaahdaan sideedana waa lagu dayi karaa laakiin waxaa lagu daynayaa ambiyada malaa'igta ayaga dhexdooda haddii la yidhaahdo rusulay isu wada yihiin aa layidhi malaa'igta ayaga dhexdooda rusulay isu wada yihiin laakiin waxa weeye ambiyada rusul uma wada ahan jaacilil malaa'ikati malaa'igta ka yeelay rusulan rusul ka yeelay oo sideeda haddii lagu daayo ayaga dhexdooda rusulay isu yihiin laakiin haddii la yidhaahdo ambiyada oo bani aadamka ah ayay rusul u yihiin oy waxyiga u keenaan bacdi oo malaa'igta ka mid a ayaa waxyiga u keena saasaa la leeyahy saasay u kala duwanta arrintu markaasuu dha ilaahay malaa'igtaasoo ulii ajnixatinow ilaahay garbo u saaxiiba oo waxaa weeye malaa'igtu waxay leeyihiin garbo ay ku buubaan ayay iska leeyihiin masnaa laba ayuu dhah ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo wa hulaasa 3 iyo wa rubaaca 4 marka haddii masalan ba la yidhaahdo laba haddii la garta laba waa isu dheeli tiran tahay 4na waa isu dheeli tiran tahaye 3da markii la yidhaahdo waa sidee waxaa la leeyahay lacalahu yakuunu fii wasadi dahri waxaa laga yaabaa duudka bartankiisa inuu uga yaalo bayna aljanaaxiin labada garab dhexdooda oo markaasi awoodda uu ku siyaadinayo sida hadda masalan ba waxa weeye sancadan bani aadamko bahashaan markaasi waxa weeye helicopterka oo kalantood oo ayadoo markaasi dhinacyada wax ku wadata haddana kor haddana waxa weeye waxay ku leedahay markaasi garab ay ku leedahay oo kor u jiidaaya saas inay taa suurtagalaha la yidhi maxaa yeele caqliga bani aadamka wuxuu keenayaa laba wuxuu markay yihiin waa isu dheeli tiran yihiin 4na sidaas oo kale laakiin tiro kale hadday noqdaan oo tiro isdhiman hadday noqdaan waxa weeye xaggee markaasi uu gelayaa sidaasaa markaasaa suurtagalaha la yidhi ilaahay baa ku cilmi leh alla siduu doono ka dhigi karaa asagu oo hataa dhinacu isla mari karaa labo halna dhinac ayuu mari karaa sidaas waxa weeye awoodda ilaahay wax walba waa ku suurtagelaya masnaa labow dha ilaahay iyo wa hulaasa 3 iyo wa rubaaca 4 yaziidu alla waa ziyaadinayaa fil khalqi abuurkow dha ilaahay malaa'ig iyo qayrkoodaba weeye maa yashaa wixii alla uu doono ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ziyaadinayaa marka hadda malaa'igta hadda waxaa la sheegay garbahooda markaasi 2 iyo 3 iyo 4 ilaahay sheegay yaziidu fil khalqi maa yashaa ayuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala imaamu zamakhshariya waxau dhahay bacdul kutub ayaa waxaan ku arkow dhahay inay jiraan sinfi oo malaa'igta ka mid ah oo iskale markaasi 6 garab iska leh 2 garab waxaa weeye markaasi jirkooday ku duubayaan 2 garabna waxaa weeye way ku duulayaan 2 garabna waxaa weeye wejiga ayay uga yaaliin oo waxay markaasi wejigay ku ilaashadaan xayaa'an min allahi subxaanahu wa tacaala ayagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala ka xishoonaya xadiiskii waa tow ahay markaas oo nabigu dhahay
malakul jibriil ayaan arkay meesha la yiraahdo sidratul muntaha ayaan ku arkay asagoo iska leh 600 oo garab iska leh oo markaasi madaxiisa jawhar ay ka daadanayso iyo yaaquud way waxa kale la wariyay jibriil ayuu su'aala nabiga kaleey salaam inuu istusiyo suuradiisa oo isku tusiyo markaasuu wuxuu dhahay ma awoodi karaysa arintaas markaasuu wuxuu dhahay waxaan jecelahay saas inaad ii yeesho malakul jibriil oo nabiga dhahay kaleey salaam marka waxa weeye nabiga kaleey salaam waa baxay habeen oo markaasi waxa weeye dayax jiray aheeday jibriil ayaa u yimiday suuradiisa ayuu yimiday markaas nabiga kaleey salaam la miir daboolay bacda ayuu soo miiraabay asagoo markaasi waxa weeye cuskan oo markaasi waxa weeye hadana waxa weeye labadiisa gacmood midna labadiisa gacmood xabadka ku haye meelna cuskan markaasuu wuxuu dhahay rasuulku kaleey salaam subhanallah ma kuntu ara shay'an min al-khalqi hakada uma malihin khalqi oo sidaana inuu jiro markaas jibriil wuxuu dhahay ka warramuu dhahay hadaad arki lahayd israafiil malaga la yiraahdo wuxuu leeyahay 12,000 oo garabo iska leeyahay halkii garab oo kiisaane wuxuu dhan yahay oo qarinaya mashriq qorax ka soo baxo qarinaya halka garabo gal garabne maghrib ayuu qarinaya hada waxayna gaaraan 12,000 laba garaba mashriq iyo maghrib kala qarinaya arshigana hadana waxa weeye hoostiisa ayuu ku jiraa hadana mararka qaarkood waa yaraadaa haw dhahay aad ayuu u yaraadaa azmaanta qaarkeed wuxuuna u yaraanayaa ilaahi cadamadiisa asagoo ka heebaysanaya ilaa markaas oo ka noqdo dhahay markaas shimbirka yarka oo waxa weeye cusfuurka oo la yiraahdo markaas raan yarka ama sayse guurka shimirta la yiraahdo yararka saas oo kale inta uu ka noqdo heebad ilaahi subhanahu wa ta'ala uu ka heebaysanayo anagoo hadda dhaif kaana oo wax aan hay anna jirine meel la isaajiya la laayay kibirka iyo dulmiga iyo macaasida iyo waxa aanu hayno rasuul waxa weeye malaa'ikta ilaahayna sidaas weeye markaasuu dha ilaahi subhanahu wa ta'ala yaziidu wa ziyadinaya fil khalqiga abuurka malaa'ig iyo qeyrkeedaba ma yeeshaa wixii alla uu doono maxaa yeelay in allaha alla ala kulli shay la arka kulligiisa qadiir alayhi karaway ilaahi hadana wuxuu dhahay ma ki yaftahillahu alla uu furo linnaas dadka oo u furo oo min rahmatin naxariisa dadka wixii ilaahay u furo oo siiyo naxariisa sida risqiga iyo madarka iyo qeyrkooda wax kasta oo rahmad ah fala mumsika laha mid celinaya ma jiro oo hay kara fala mumsika laha mid celinaya ma jiro ilaahay wama yumsik waxa alla uu ka haayo dadka uu ka haayo fala mursila lahu mid soo diri kara ma jiro ilaahay min bacdihi ilaahay bacdigiisa awoodda ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu iska leeyahay tasarrufka koonkan ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala nooga waramaya markaasuu dha ilaahay ma yaftahillahu wixii alla uu u fura linnaas dadka maadana waxa suurtagal inay shardi ay tahay yaftaxdaasna ficlu shard ay tahay fala mumsika lahana jawaabu shardiga ay tahay ama mawsuula ay tahay mubtada yaftaxdaasna silatul mawsuul ay noqoto fala mumsika lahana markaas khabarul mubtada ay noqoto saasa markaas la dhici kartaa leeyri waa marka dadka u furay risqiga kamida oo adduunyada lagu siinayo ama aakhira xataa lagu siinayo marka hadda raxmadii waxa laga cabiray fadhi laga cabiray waxa la ishaarayaa inay shay aad maaratay u sharaf badan oo weyn ay tahay oo shaqnigeedu weyn yahay la isu saayaa weey khazaa'inta ilaahi subhanahu wa ta'ala ay ku jirto halkaas ay ka iimaanayso haddana waxa weeye ilaahi raxmadiisu adduunyada inay markaasi dhaalim iyo qeyrkiis gaal iyo muslim inay camimayso weey hadii ukhrawiye la yiraahdane dadka muuminiinta ay camimaysaa marka raxmadaas ilaahay dadka u furay fala mumsika laha mid haynayo oo waxa weeye ka celi kara ma jira weeye wama yumsik wixii alla uu ka haya dadkane fala mursila lahu mid u soo diraayo ma jiro oo dadka soo gaarsiinay min bacdihi ilaa bacdigiisa oo wixii ilaahay celiyane cid markaas soo celi karta ama keeni karta oo wax sii karta ma jirta weeye tasarrufka koonkan ilaahay baa iskala subhanahu wa ta'ala wa huwa allahu ilaahi al-aziz alladhi ghalibu weeye al-ghalibu ala amri al-hakim alladhi falsuban weeye ilaahi wuxuu sameeyay ilaahi aziz weeyo cid markaas waxa weeye la muqaalabo tami karta oo la tartami karta oo wixii ilaahay oo bixinaya ka hor istaagi kara ama wixii ilaahay uu celiye ka soo qaadi karta alla ma jirto haddana ilaahay hakiim weeyo ficilkiisa hakiim uu ku yahayo shay walba ilaahay mawduciisa ayuu dejinayaa
إلهي وحوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس ضد هبو اذكروا حصوصتا نعمة الله إلهي نعمديسة عليكم كركين الله يذكروا نعمي إلهي وحوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس ضد هبو اذكروا حصوصتا إلهي نعمة الله إلهي نعمديسة عليكم كركين الله يذكروا نعمي هذا ضدك وقت قاسد الشيء وحوي يا ليري مارتيا ومركز أهل مكة ضدك كفارتا هاي وحوي إلهي حرم أو آمن هو دين دجيه غاراتك أما weeraradi iyo dagaaladii oo meelaha kala ka dhici jiray idinka waa la idin ka reebo waxa la idin ku xurmeynaa amba la idin ku dhowraaya xaramkan marka waxa la rabaa nicmadaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala inaad ku shukrisiin ama se waxa weeye sida raajixa caam weeye markaas bani aadamka dhamaantiis ayaa waxa laga doonayaa shukri nicmada Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siiyay inuu ku shukriyo cid kasta nicmadii la siiyay ayaa la rabaa inay Allah ku shukriso markaasuu dhahay Allah subhanahu wa ta'ala ya ayuha naasu dad habu udkuru xasuusta nicmata Allah ilay nicmadiisa alaykum kurkina lidinku nicmeey hal min khaliqin khaliq majra mid wax abuura oo qeyrullah ilay qeyrkiisa majra hal min khaliqin oo ilaahay subhanahu wa ta'ala mid khaliqa majriya oo waxa weeye wax abuura hal min khaliqin mid khaliqa majra qeyrullah ilay qeyrkiisa majra haddii markaas la yiraahdo markaas waxay noqonaysaa hal min khaliqin raf'ad dil akhri horta hal min khaliq ghayrullah iyo ghayrillah labada waa qira laba qira oo sabciyataana way isfahamtaana waxay noqonaysaa la taqriir ay noqonaysaa oo waxa weeye khaliq ilaahi ghayrkiisa ma jira way hal min khaliqin oo ilaahi mid wax abuura ma jira ghayrullah ilaahi ghayrkiisa ma jira haddii saas la yiraahdo habadii kale tood ghayrillah khaliqa laga sifaynaya خالقاسو غير الله إلهي غير كيسا مجروي واتاي خالقاسو يرزقكم إذن كأرزقية من السماء السماء إذن كأرزقية خالقاسو يرزقكم إذن كأرزقية من السماء السماء إذن كأرزقية ومضر ككيناي والأرض أرلدنا إذن كأرزقية أرلدنا النبات ككيناي استفهمتوا للتقرير وي لا خالق ولا رازق غير الله وي خالقاسو يرزقكم إذن كأرزقاية من السماء السماء إذن كأرزقاية والأرض أرض إذن كأرزقاية إلا وح بينا أي سمايين ووح وي أصنام يا وح باسي عابدا يانو إلهي غير كيسة لا إله إلا إلهي لا معبود بحق في الوجود على حق لو عابد كون كمجره إلا هو الله مويه إلهي سبحانه وتعالى خالق أو رازق وحوي وامدك كليس كون كان لو عابدو عبادتيسو أي حقتها وهي ساكا صهرنا بادل وي لا إله لا معبود بحق في الوجود وي الله حق لو عابد كون كان مجره إلا هو الله مويه الله صفات اسكله أي عبادة متيستي وحي كلانتودنا عبادتي لعابد بادل أي نقونيسا فأنا كيف سيديبا أيوده الله سبحانه وتعالى توفكون الله يدين إليه سيمرك حق الله يدين كغا صرفينيا يا الله سيداس إناد وحيدان oo allahaas aad maaratay kaligiis aad caabudaan adinkoo qiraysiin ilaahay inuu khaaliq yahay oo raasiq yahay ilaa hadda hadii la yiraahdo waa soo marnay hadda ka hore suuratul mu'minuun qul man yarzuqukum minas samawati wal ardh hadii la yiraahdo samada arrada yaa idinka arzuqa allah ay leeyihiin hadda ayagoo marka waxa soo dhan saas u qiraaya ayay haddana allah subhanahu wa ta'ala u shariig yeelaya markaasuu dha ilaahay fa anna kayfa sideeba tuufakuna laydin ilaya see laydin kaga sarfinaya ilaahay tawxiidkiisa ilaahay haddana wuxuu dhahay wa in yukadibuuka haday ku beeniyeen sayidka maxamed kaahu oo ay kugu beeniyeen la imaashadatan aad ula timida tawxiidka bacsiga qiyaamo inuu jiro la isu soo bixinayo la isxisaabayo aad u sheegtay ciqaab oo jira aad u sheegtay arintaas haday kugu beeniyeen oo ilaahay ayadan marka rasuulkeena kaleey sallallahu alayhi wasallam ayaa tasliya looga dhigayaa arintaana inaysan nimankan kali ahayn oo wax horu jiri jiray oo kufaari hore ay sameey jireen arinta ayaa ilaahay wuxuu leeyahay wa in yukadibuuka haday ku beeniyeen sayidka maxamed kaahu faqad xaqeeqaha kudibad waxa la beeniyay rusul oo min qablika adiga hortaada ahaad adiga rasuulka horeysa la beenshay marka waxa weeye markaasi fasbir kama sabaru sida ay u sabreen u sabra leey arintaana arin soo jireena weeye bani aadamkaane wax kasta waa isaga mid shar iyo khayr ba isaga mid weeye wa ila allah ilaahi xaqiisa ayuu dhahay ilaahi subhanahu wa ta'ala
ayaa turjacul umuuru umuurtana loo celinaya oo hadda adduunyadan wixii lagu sameeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala cid walba qiyaamo markay dhacdo oo aakhiro la isugu tago oo la isu soo bixiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala cid walba waxay samaysay ayaa alla ku jaasinaya marka mukadibiinta ilaahay baa jaasinaya mursaliinta iyo muuminiintana ilaahay baa u gargaaraya wa ilallaahi ilaahay xaggiisa ayaa turjacul umuuru umuurta loo celaahu dhah ilaahay haddana alla wuxuu dhahay yaa ayuhannaasu dad yahabow inna wacdallaahi ilaahay yaboohiisa ilaahay bacsi iyo kayrkiisa uu yaboohay wax kastoo wacdi ilaahay weeye yaa ayuhannaasu dad yahabow inna wacdallaahi ilaahay yaboohiisu xaqun mid xaqa weeye ilaahay waxa uu yaboohow sheego wax dhacaaya oo aan shaki ku jirin weeye haddaba marka ilaahay wuxuu dhahay falaa taqurannakum yaysan idinkedinin alxayaatu nolosha addunya oo dhow ilaahay waxuu yabooha wax xaqa weeye wax dhacaaya weeye marka xayaatadan adduunya yaysan idinkedinin oo aysan idinka sarfinin inaad adduunye ku mashquushaan ilaahay inaad adeecdaan yaysan idinka jeedinin falaa taqurannakum yaysan idinkedinin oo yaysan idinkedinin alxayaatu nolosha addunya oo dhowdha ilaahay inaad rumaysaan wacdiga ilaahay walaa yaqurannakum yowsan idinku kedin haddane billaahi ilaahay xilmigiisa iyo ilmhaalkiisa alqaruuru keda badana oo shaydaan ah walaa yaqurannakum yowsan idinku kedinin billaahi alle alqaruuru keda badana yowsan idinku kedin hadda waxa weeye adduunyadii dadka way kedinaysaa shaydaan asaguna dadkii buu kedinayaa marka haddii shaydaan iyo adduunyo waa laba iswatee hadday isku helaan sidaas ayay markaasi waxa weeye maxaa yeelay shaydaankii dadka adduunyada u sarfinayaa aakhirada inay jirto ayuu ka leexinayaa dadki waad aragtayoo wax aakhirada uu camal falaya lama arko dadkii waxa weeye dad adduunyay noqdeen qof walba adduunyay ordaysaa aad iyo aad bayna u rumaysan tahay inay adduunyadan nolol ugaga baahan tahay oo adduunyada ay maqaam ka gaarto oo adduunyo kaliya ay maaragtay ay wax tahay saasay maaragtay badankooda rumaysan yihiin kufaarta iyo munaafiqiinta iyo xataa waxa weeye iska ducafaa'ul iimaan xataa adduunyada xooga saaraya ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka digaya arrintaas oo wuxuu dhahay walaa yaqurannakum yowsan idinku kedin billaahi ilaahay xilmigiisa dulqaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka cadaabka mutaysa alla uusan ku soo dedejinaynin ee ilaahay dib uu dhigaayo alqaruuru qaruur waxa weeye keda badana la yiraahdo shaydaanka weeye maxaa yeelay shaydaanku wax badan ayuu markaasuu dadka ku kedinayaa markaasuu dhahay alla subxaanahu wa tacaala haddana ilaahay isagoo shaydaanka nooga digaaya inna shaydaana shaydaanku lakum idinka caduwun cadow ayuu idin yahay cadow aad iyo aad weyn weeye shaydaanku cadaawada shaydaankuna waa mid qadiimaha horaysa weeye waa mid markaasi hore u aasaasneeday cahdigii abuuna aadam laga soo bilaabo oo abuuna aadam iyo zawjadiisa xawaahee jannada uu ka soo saaray isla markaasina waxa weeye sujuudi nabi aadam uu diiday intaasna waxa weeye awlaadiisina oo u dhaartay inuu baadiyay doono cadaawada ibliis cadaawo fog waaye cadaawadana sideedaba waxa uu ugu daran midda qadiimada ah uu daran cadaawo hadday xaadis tahay waxaa laga yaabaa in markaasi waxa weeye laga heshiiyo ama laga nabad galo uun markaasi si loo maareeyo laakiin hadday cadaawo qadiima cadaawadu ay tahay waxa weeye waa mid aad iyo aad u dhib badan weeye shaydaanku marka waxa uu noo qabaa ama bani aadamka u qabaa cadaawo horayso oo qadiima u qabaa ilaahayna waa nooga digayaa subxaanahu wa tacaala marka inaan talada ilaahay qaadano ayaa loo baahan yahay haddaan talada alla qaada weyno shaydaan taladiisaan qaadanaynaa asaguna hadda meesha uu noo wada ilaaha noo sheegaya ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala inna shaydaana shaydaanku caduwun cadow weeye oo lakum idinka idin sugnaaday fatakhiduuhu ka yeesha bani aadamow shaydaanka caduwan cadow ka yeesha cadow qofku waxuu shaydaan ka yeeshay markuu alla adeeco shaydaankana uusan adeecinow ka leexdo oo iska ilaalisho markaasuu cadow ka dhigtay laakiin qofku hadduusan alla adeecaynin ee wixii macaasiyaho ilaahay reeba uu samaynaayo hadda waxa weeye shaydaan saaxiibkiisa u noqday marka waxaa laga wadaa ilaahay uuna leeyahay fakuunuu minhu calaa xadarin ka digtoonaada axwaashiina dhammaanteeda ee waxa weeye sir iyo calaaniyo ha aaminina waxba ha ka aqbalina oo wax ad ka aqbashaan yaysan jirin waa tawdha imaam al-Buusiri wa khaalif an-nafsa wash-shaydaana wa'sihima wa inhuma mahallaka nus'a fatahim yuda
walaa tudic minhumaa khasman walaa xakaman fa anta tacrifu kayda alkhasmi walxakami u dhah nafta khilaaf ayuu dhah iyo shaydaanka kuna caasi u dhah xataa waxa weeye hadday xataa kugu booriyaan naseexo oo waxaan waa fiicayn saa ay ku yidhaha ku tuhmayso u dhah walaa tudic minhumaa khasman walaa xakama u dhah dood ay kuu doodaan iyo xaakim ay kuu noqdaanne ha ku adeecin oo nafta iyo shaydaanku ay markaasi isaga kaa dhigaan wax adiga markaasi ku daafacaya amase wax kaa hor imaanaya fa anta tacrifu kayda alkhasmi waxaasa markay tahay midka kula doodaya dhagartiisa waa taqaanaa u dhahay iyo midka markaasi waxa weeye raba inuu ku xugmiyo marka ilaahay waxau dhahay fatakhiduuhu caduwan cadow ka yeeshow dha ilaahay maxaa yeela inamaa in kaleeta maahina yadcuu shaydaanku waa u yeerayaa xisbahu xisbigiisa xisbiga waxaa laga wadaa dadka raacsan ayaa laga wadaa qofkii shaydaan raacsan xisbu shaydaan weeye xisbigu hadduu yahay xisbi ilaahay subxaanahu wa tacaala raacsan oo waxa weeye alla subxaanahu wa tacaala amarkiisa qaadanaya waxuu ka reeba ka haraaya xisbullaahi waa la dhihi karaa oo uu ku shaqaynaayo sharciga ilaahay oo ku shaqaynaayo kitaabka iyo sunnada markuu ku socdo ayaa xisbullaahi la dhihi karaa alaa ina xisballaahi hum lmuflixuuna kuwa uu yidhi ayay noqonayaan alaa ina xisba shaydaani hum lkhaasiruunane waa markii waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala daacadiisa ay ka leexdaanoo kitaabka alle iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam markay ka leexdaan oy shaydaan u shaqeeyaanne xisbu shaydaana la yidhaah ilaahayna waa tawsha waa ku tegi doonaa haddii la yidhaah alaa ina xisba shaydaani humul khaasiruuna shaydaanka xisbigiisa kuwa khasaaro weeye marka shaydaan xisbigiisa ilaahay wuxuu dhahay inamaa in kaleeta maana yadcuu shaydaanku waa yeerayaa xisbahu xisbigiisa kuwa raacsan weeye ayuu u yeerayaa wuxuuna u yeerayaa liyakuunuu inay ahaadaan min asxaabi saciiri naarta saciire la yidhaahda asxaabteeda inay ka mid noqdaan intaasuu ugu yeerayaa inamaa yadcuu waa u yeeraw ilaahay xisbahu xisbigiisa muxuu ugu yeerayaa laamta hadda laamulcaaqiba wasayruuraa la yidhaah macnaha waxa weeye yeerisoo u yeerayo qofka ajiiba ayaa caaqibadiisu waxay noqonaysaa inuu liyakuunuu min asxaabi saciira u noqdo asxaab saciira inuu markaasi waxa weeye dadkeeda ka mid noqdo weeye inamaa in kaleeta maana yadcuu waa u yeeraw ilaahay shaydaanku xisbahu xisbigiisa liyakuunuu inay ahaadaan own ilaahay ayuu ugu yeeraya min asxaabi saciiri saciira asxaabteeda qof kastoo shaydaan raaca waxa weeye shaydaan uu halkaasuu geynayaa meesha shaydaan asagu u socdo halkaas weeye ciddii raacdana halkaasuu geynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaalana waa noogaga digay marka shaydaan inaanu cadow ka dhiganno ayaa loo baahan yahay hadda saaxiib haddaa ka dhigato na waxa weeye meesha uun ku wada halkaas weeye uun kala dooro marka casharkeen intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu